xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ayaa si adag uga hadlay xaaladda Tukaraq. Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UCID ahna kusimaha gudoomiyaha Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni ayaa arintaasi ka hadlay. marka arrimaha noocaas difaacu dalku yimaadana mucaarad iyo maxaafid wala midaysan yahay waxa lagu midaysan yahay in dalka la difaaco qaranka Soomaaliland wuxuu leeyahay ciidamo ku dhaato oo uu ku kalsoon yahay oo uu ku seexdo oo ku soo toosayo ugama cabsanayno inay jabiyaan mooyaane ilaahay idankiina gardaradoodaas way ku jabi doonaan marka xisbi ahaan waxaanu ayiideynaa taageerada iyo dadaalka ay xukuumadda cusub ugu jirto xuduudaha Soomaaliland sugudooda marka taas xisbi ahaan waanu ayiidsanahay waxaan cod dheer ku leenahay saaxiibadayada kale mucaaradkan aan ugu baaqaynaa inay arintaasi laga yeesho arin qaran weeyi cod mid ah in laga yeesho waxaan u sheegaynaa farmaajo gardarada uu wado oo si daba socota tii wasiirkiisu maalintii dhaweyta uu ku yimid deegaanadaas waxaanu beesha caalamka ugu baaqaynaa xisbi ahaan in arintaasi degdeg loo soo farageliyo degdeg waxa way wax looga qabto gardaradaasi mid aanu dul qaadan doono maaha. geesta kale gudoomiye ku-xigeenka ayaa eedeeyay wasaaradda warfaafinta maadaama xukuumaddu cusub tahay xisbiga UCID waxa uu doorashadiisii ku galay 2017 hadii uu soo bixi lahaa la dagaalanka musuqmaasuqa anagu maanaan helin doorashadii xisbiga kulmiya helay iyaguna inta tulamiday dadka u sheegi jireen in la dagaalamo musuqmaasuqa arinta maanta jirtay dalkeena aafaysay waa abaar sixir barar iyo musuqmaasuqii waxaad moodaa inuu wari jiro waxaanu ku sheegaynaa madaxweyne wasiir bedelay arintu ma noqonayso jira ha loo hiiliyo dadka warbaahinta qaranka ka shaqeeya halkaasi subax walba xafiiska la taagan yahay waa la cabanaya. xasan maxamed yuusuf ayaa isaguna eedeymahaasi ka difaacay wasaaradda warfaafinta bulshada iyo isaga waxaan u sheegaynaa cidii magaranaysa eeday ka soo jeedisayba mid shakhsi iyo mid wasaaradeed tay doonto ha noqoto in arrinkaasi aanu sidiisa ugu gudbinayno maxkamadaha sharciga ah ee loo maro qawaaniinta magaranaysa wadanka lagu hago ee noocan oo kale maxaan ku dhahday wararka noocan oo kala ku shaqalayna ka garqaadaan sidaa daraadeed waxaan leenahay cidii arrinka soo jeedisay eedeymaha soo jeedisay aflagaadooyinka wixii cadeyma haysaan waxaynu ku kala calaf qaadaynaa waa maxkamadda maxaan ku dhahday sharciga hadii alla yiraahdo wixii cadeymaad haysan halkaas aad keeni doontaa insha Allah ama taada ayay noqon doontaa ama maxaan ku dhahday gefka aad gashay ayaa laga abaalmarin doonaa sharciga ayaa ka abaalmarin. Liibaan Cismaan Cali, telefishinka Ariel, magaalada Hargeysa.